كل أدنى تروح عيد بالله أنا هاي بصاب سنة ده النجح وحلا يروح عن طريقنا أنا هاي دونالد ترامب خد النجح but I don't care I want one دور يعني أنا هذا وحنا هاي إن أنت حسب نقوم أنا منع نقوم أنا درسي أنا وحين نعرفه waxaan ka soo horjeedaa ciddii arabnimada ka xun waxaan ka soo horjeedaa ciddii arabnimada hoos u dhigtaa waxaan raacsanahay quweynta iyo midnimada arab oo aan qabyaalad lahayn oo aan khiyaamo lahayn oo aan xusbiye lahayn oo aan waxba lahayn marka hore marka innagu aynu wax noqonno marka keliya aynu wax noqonno innagu ayaa dadka kale ku qiimeynaya innaga waa in layna soo doontaa ma aha innagu inaynu dadka doonano may fahmaysaan taa ma aha inaynu noqono dadka daba socda waa in layna daba socdaa dhulkan iyo dalkan waynu u dhimannay waynu garanaysaan belgubadla halkay tahay iyo qarankan belgubadda halkay ka taagan tahay iyo dhismihii somaliland halkay ka taagan tahay maanta waynu arkaynaa halkaynu ka joogno saaxadda siyaasadeed maxaan ku dhahdaa dhaqaale ta tacliimeed mid walba taas waxaa keenay urur la-aanteena isku kalsooni la-aanteena inagoo moodayna mid walba midku meel u dhukuso inuu wax soo kordhinayo laakiin waxbuu yeelaya arab dhalinyarada way fiican tahay aad iyo aad bay qurux badantay inaad noqotaan dhalinyaradii ugu horreysay arab ee isu timaada ee ismaamusha ha noqonina laakiin dhalinyaradii waxaad noqotaan dhalinyaradii wax hogaamisa ha noqonina dhalinyaradii la hogaamiyo ha noqonina dhalinyaradii lagu shaqaysto ha noqonina dhalinyarada la khiyaameeyo caqligiinu iyo tacliintiina iyo maskaxdiinu waa inaad ogaataan halkaad ka timaadeen markaad garataan halkaad ka timaadeen ayaad fahmi doontaa halkaad ku socotaan ha u shaqaynina mentality ha ku shaqaynina mentality arabnimada ha gelinina asxaabnimo iyo meel aanay geli karin arabnimadu waa qadiyad adag oo aan cidnaba aanay ku shaqaysan karin oo aanay xadi karin oo aanay khiyaamayn karin ha rumaysanina marka ururadu idinkala xadayaan ha rumaysanina marka la idinkala qaybinayo idinkoo mida wax noqda cidda doontaan taageera cidda doontaan u codeeya laakiin wixii idinku dhacay maalintii dhaweytare codadkii xildhibaanada xusuusta waa laydin khiyaameeyey xusuusta qaar idinka mid ahoo maankoodu aanu furnayn oo moodaya markay nin kale codkaysa siiyana magac yeelanayaan amba in la qiimeynayo ayaa maanta idinka mid ah ayaa maanta resultkiina waynu ka arkaya jawaabtiina ad arkaysaan waxaynu nahay dad aan jirin golaha dowladda hoose ma jirno baarlamaanka inan keliya miyaanay taas ceeb ahayn miyaynu u qalanaa reer waxaa lagu sameeya amba isku sameeya maxaa keenay markaa shirkan iyo dhalinyaradan iyo waxaan isu timid waa inay daweeyaan mushkiladaha caynkaasa waa inay daweysaan waxaas dalkanna horumarkiisa in laydinka horreeya maaha idinka waa inaad noqotaan dadka hogaamiya waa inaydan noqon dadka xishooda inaad arab tihiin arab baad tihiin maanta berita noqon doontaan shalay ahaydeen saadama noqontaan mar walba noqon doontaan maantaad ka xishootaan arabnimadiina ayaa idinku dambayso baabaabaad tihiin markaa xusuusataa ha ka xishoonnina waxaad tihiin identitygiina ha ka xishoonnina cid ha kula saaxiibina yaa laydinku khiyaamayn shirkan aynu isugu nimid hadallo badan baa ka yimid oo si u dhaco dad badan oo kala fikrada duwan baa ayaa ka hadlayay oo waxoogaaba yaro qaatay in la dhinaan riyo caqabada maaha taas caqabad maylaha taas waxay ahayd waxa laga shaqaynayay uun in shirkan noqdo shir wanaagsan oo cid walba ku jirto oo aan la afduubi karin waxaan idinkula dardaarmaya saaxiibayaal waxaad tihiin liaderskii berito haddaad tihiin rag iyo dumarba waa inaad garataan reerkan sidii loogu jahayn lahaa ee loogu talin lahaa
idinkaa u talinaya reerka maskaxdii reerkii tacliintii reerkaa tihiin ogaada taas aad u ogaada hana ka xishoonina waxaad tihiin weligin ha ka xishoonina waxaad tihiin aad iyo aad baad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu